الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير زاد إلى يوم المعاد. ثم أما بعد، walaalayaal, sida dareemaysa khudbadeenu waxay ka hadlaysay cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. cibaadadu waxay leedahay aadaab. qodobkaynu baraarujinaynaa waxa weeye Allah inaga aqbalo waa cibaadaysanaynaa, laakiin cibaadadaasi aadaab bay leedahay. cibaadada aynu taaganahay oo aynu Ilaahay ku raali gelino wixii uu ina faray ee uu jecel yahay, ee qalbiga lagala imanayo, ee qowlka lagala imanayo, ee ficilka lagala imanayo. cibaadadu waa taas: التذلل لله سبحانه وحبه والخوف منه والخضوع له. وإن أدومه إلهي سم مسكينيا يوغا كعب صنايا أو تشعل أو يسوديبيا. عبادة داس آداب تيدا وحكوكا إنه علمي قيدا يالانو شينا ما أنصح علم الآن. عبادة دا هدي علمي قيدا لقود ذالي وايو oo qofku iska cibaadaysto oo noocyada kala duwan: soomkii, salaadii, sakadii, xajkii, dhikrigii, quraanki kariimka ahaa, oo cilmigeeda uu ku dadaali waayo, waxa laga yaabaa isagoo cibaadaysanaya inay cibaadadaasi ka dhaawacanto, bal ay ka buri kartaba, sidii ku dhacday saxaabigii rasuulka ku ag tukanaya sallallahu alayhi wasallam. nabiga agtiisu asxaabi ku tukaday, markaasuu nabiga u yimid oo salaamay. rasuulku dib u celiyay sallallahu alayhi wasallam, wuxuu ku yiri salli fa innaka lam tusalli. dib u noqo tuko ma tukan. mar labaad buu ku celiyay, mar saddexaad buu ku celiyay. markii uu isdiibu gacmaha taagay uu qiray wax inta ka kordhinayo ka wanaajinaanay jirin, rasuulku uu saxay sallallahu alayhi wasallam. cibaadada uu gudanayo salaada ahayd arkaanteedii mid kamida oo dumaaniinadii xasiloonida ah inuu ku xasilo arkaanta rukuucda, sujuuda. ruknigaas oo ka tagay nabigu ku baraarujiyay alayhi salaatu wasalaam, kadibna uu saxay. markaas waan saxla. waxa muuqanaysa walaalayaal, cilmiga agteena lagu akhriyo ama masaajidada ka baxaya oo bilaasha in dadku ay masaajid ka baxaan oo ay soo taagaan, inaanu qofku culimada waadan u imanin iyo quraado aanu oranin maxaan khaldaya, maxaan saxaya. hadduu faatixadii iyo taxiyaadkii iyo takbiiratul ihraam iyo arkaankii qowliga ahayd salaadii oo qofkii qaldo, taasoo saxiid u baahan way ka buraysa. marka awalan waxaynu baraarujin lahayn cibaadada aynu gudanayno cilmigeeda aynu yeelano. waxa labaad oo cibaadada aadaabteeda kamid aynu isku baraarujinaynaa inaynu helo dawqa alcibaada, cibaadada dhadhankeedii siduu rasuulullaahi maxamed ahaa sallallahu alayhi wasallam. inagoo nabigeennii wanaagsanaa kaga dayanayna waa inaynu ku dadaalnaa oo aynu xaawilnaa sidaynu u heli lahayn cibaadadaynu gudanayno noocyadeeda kala duwan inay inoo dhadhanto. iimaanku walaalayaal dhadhan buu leeyahay, cibaadaduna dhadhan bay leedahay. sidaa daraaddeed buu rasuulku lahaa sala allahu alayhi wasalam: wajucilat quratu cayni fi salaa. ishaydaasi waxay ku qabowsataa oon sacaado dareemaa oo aan ku degaa salaada. waxaa astaanta koobaad u ah marka cibaadadu kuu dhadhamaysa inay khushuuci jirto: qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. khushuucda iyo la-aanteedaba wax la barto wey. haddaad ku dadaasho inaad qalbigaaga soo xaadiriso ood ogaato ilaahay inaad hor taagan tahay subxaanahu wa tacaala daqiiqadaha salaada ku jirto, khushuucda waad baran kartaa. maalinba in baad kordhinaysa. khushuuc laantana waa la bartaa.
qofku hadduu naftiisa xawilo sidii moobaylku u xawilaa kale oo intuu salaada ku jiro uga faa'iideystay inuu xisaabiyo ama qalbigiisu soo wareega suuqa dhexdiisana uu baranaya marka qadiyadaas cibaadada aadaabteeda waxa kamida noocyadeeda kala duwan inay macaani noo samayso oo aynu xiisayno oo aynu soo jeclaysano oo aynu soo degdegsano salafuna saalix sidaas ay ahaayeen qofku inuu shayga xiisaynayo waxa calaamad u ah horay buu u yimaadaa wuu soo tabaabushaysta wixii ku xidhan buu soo qadimaa qaarkood waxa ay xusayeen iyagoo ummadda ku baraarujinaya sida cibaadada ugu dadaali lahayn salaadoo kale 40 sannadood inaanu mu'adinku adaamin ilaa wahuwa fi lmasjid isagoo masjidka ku jira mooyaane taas waxay tilmaamaysaa al-isticdaad qabla salaa marka cibaadadu kolkaynu ku dhex jirno noocyadeeda kala duwan qur-aanku waa inuu macaanaado soomku waa inuu inoo macaanaado sadaqada dikriga salaada dhadhan waa inaynu helaa dhadhankaa haddii la waayo naftu way xanuunsanaysaa dib aynu ugu noqono waxa cibaadada adaabteeda ka mida dawaam walmuxaafada cala alcibaada cibaadadaadu inaanay noqonin mid googoosa markaad doontana aad samayso markaad doontana aad ka tag laakiin cibaadadii waa inay kaa dhab tahay qofkii uu ku nool yahay uu ku dhimanayo oo aanu ka tegay hadday dhacdo qofku inuu ciidaha iska tukado iyo jimcayaasha iyo markuu dad tukanayo la socdo maxaa lagu sheegi karaa cibaadada u sheega oo dadka walaalaha ehelkeena ah waa inaynu u sheegnaa cibaadadu inaanay aqbali karin in la googooyo axabu alcamali ila allahi adwamuhu wain qal rasuuluna almucadam sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay camal oo dhan ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka la joogteeyo haba yaraado sidaa daraaddeed baa qur-aanka suuratu sa'ala iyo qad aflaxiya markaad akhrido sifaadka mu'miniinta ilaahay wuxuu ku ammaanaya inay salaadooda daa'imayaan xaafidayaan ilaalinayaan arrintaasina waa daruuri carruurtaynu sidaa ku waaninaynaa xaasaskaynu ku waaninaynaa saaxiibadaynaynu ku waaninaynaa iyo ka hor nafteennaba waxa aad joogtaysaa waa wax kaa dhaba waxa aad jarjartaana waa waxaad ku ciyaarayso maxaad u jari weyday shaqada subaxdii waad shaqo tagtaa maalmaha qaarkood meheradiiyo furan maad iska soo meeraysatay cunada maxaad ugu jari weyday ee aad u soo arooraysaa meeshaad wax ka cunaysa iyo meeshaad wax ka cabaysa aad mar walba aanad u seegayn eed ugu buuxsan tahay waa kaa dhab cibaadaduna waa inay dhab inaga noqotaa walaalayaal dad badan baa arrintaas iska googooyo lagu odhanaya hebel mar wuu tukadaa mar ma tukada mar wuu soomaa mar waa arrintaasi ma aqbali karaysa cibaadada wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa geeridu ay imanayso waa la wadaya cibaadada aadaabteeda waxaa ka mid a walaalayaal inaynu helo tamaradeeda iyo midhaha cibaadadu waxa weeye dhaqan wanaagsan oo uu qofku ka dhaxla cibaadada sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa uu ku calaamadeeyey salaada la aqbalay ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadu dadka waxay u diidaa foolxumada iyo ceebta iyo dembiga calaamadda qofka salaadiisa la aqbalay waxa weeye inuu yahay qof dhowrsoon oo xaaraanta iyo xumaanta cafiifka ah oo ka dhowrsoon oo ka xishoonaya soomka rasuulku wuxuu xusayay sala allahu calayhi wasalam marka soomkiisu yahay soom hagaagsan qofka inuu iska daynaya wixii dembiya ee ceeba siduu isaga daayay cunada iyo cabidda man lam yadac qowla zuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah maaha inaad laba shakhsiyadood yeelato qofka mu'minka ay laba shakhsiyadood ma leh ama laba midab munaafiqaa sidaas shakhsiyadu ku joogo masaajidka iyo shakhsiyadu bannaanka ku joogo hadduu markuu halkan joogo qofka mu'minka qiiroonayo oo uu ilmaynayo oo uu khushuucayo oo markuu bannaanka u baxana nooc kala soo baxayo oo tijaaradda kharibayo oo xaaraanta isticmaalayo oo markuu dadka la kulmo ay ka muuqanayaan nacaybshiyo oo markuu ku dhex jiro shaqada cawlo baxaa arrintaasina waa daruuri waxyaabaha cibaadadu inooga baahan tahay way adaabteeda waxaynu dareemaynaa si aynu u dhiiranno cibaadada u jeclaysanno sirteeda inaynu garanno alcilmu biasraari alcibaada cibaadada asraar bay leedahay fawaa'id bay leedahay xikmadaa ku jira markaad ogaato ku dhiirinaya xikmadaha waxaa ka mid a inaad garato annaha xaqullaahi cala alcibaad xaqa keliya ilaahay addoommaha uu ku leeyahay haddaad dadkao dhan u shaqayso oo dowladda u shaqayso ood cid walba raalli geliso
ood ilaahay xaqiisii iskaga tagto waxaaga waxba kama jiraan awwal alxuquuq wa akbar alxuquuq xaqii u weynaa ee u miisaan badnaayo kii ilaahay baad ka tagtay dad baa la ammaanaa hebel waa caadil hebel waa runle laakiin ma tukaday ka odhanaya walaakinahu laa yusalli oo muxuu sheegayaa kol haddii ilaahay dulmiye xaqiisii yuu hadhu jidayaa u ixsaan samaynayaa marka awalu lxuquuq inta ka xaaskaaga iyo waalidkaaga iyo carruurta aan la gaadhin xaqa koobaad waa ilaahay markaad sirtaa fahamsan tahay wixii kaloo dhan xaqa ilaahay baad ka horraysiinaysa cibaadada asraarteeda waxaa ka mid a annaa natlubu thawaab markaynu ilaahay u cibaadaysanayna ajir baynu doonayna ogow meel ajri laga heloon cibaadahayn ma jiro hadduu qofku idhaahdo ilaahay baan abaalmarin ka doonaya caabudini maayo way kala kacsan tahay isqabanna mayso janno qofka doonayaa cibaadaduu soo maraa waddada jannada loo maro iyo kaarhka loo qaataa waa cibaadada ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nusula jannadaasuu ilaahay ku soo dhowaynayaa dadka cibaado iyo caqiido wanaagsan leh markaa ma ka maaranno mana ka kaaftoomi karno waana inuu baahan nahay ilaahay abaalmarintiisa iyo jannadiisa wadadeeduna waa dariiqa cibaadada cibaadadu walaalayaal waxa weeye sabiilu lxuriyati lilinsaan oo markaa sirteeda aynu fahmayno cibaadada waa waddaduu qofku ku xoroobo haddaad doonayso inaad xornimo dhaba qaadato xornimada aad baa loo sheegsheega addoonnimadana dadku way ka cararaane wa haadihi alcibaada waxaa iska macruufahoo qofka bani aadamkii u abuuran yahay inuu addoon noqdo laba midun bay noqonaysaa inaad ilaahay addoon u noqoto subxaanahu wa tacaala iyo inaad addoommo kale addoon u noqoto ribciye bnu caamir saxaabigii jaliilka ahaa markuu sacd bnu abi waqaas u diray ninkii rustum la odhan jiray ee ka talinaya boqortooyadii reer eeraan iyadoo arrimo heshiis laga wada hadlayo wuxuu ninkii rustum ku yidhi maxaa caraba idin keenay horeba idinmaanaan arki jirine waxaana keenay buu ihi ibtacana allah linukhrija alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad bal eraygaa xikmaddiisa eg waxaanu idinku nimi maaha inaanu dal doonayno ma aha inaanu dunyo iyo xoolo doonayno manfac ma rabno laakiin waxaanu u soconnaa oo ilaahay noo soo diray inaanu dadka ka saarno iscaabudidda ay iscaabudayaan iyagu dhexdooda oo dadku ilaahay ay u wada sinmaan oo ilaahay keligii wada caabudaan subxaanahu wa tacaala ilaa cibaadati rabbi alcibaad haddaad ilaahay caabudi weydo ama waxaad caabudaysaa shilinka ama waxaad caabudaysaa gaadhiga ama waxaad caabudaysaa guriga rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam taa ciisa cabdu dinaari wdirhami waalqatifati waalkhamiis taa ciisa waantakas waidaa shiika falantaqash wuu habaaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa halaagsamee laha halaago qofka lacagta addoonka u ah ee alaabta addoonka u ah hadday qodaxi muddaha kusii fogaata buhi o iska soo saare allaha halaaga buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka waxaad halkaa ka fahamtay in alaabta iyo lacagta addoon loo noqon karo way dhacday waa arrin aynu arkayno caalamka casrigan aynu joogno ummadaha xorriyadda ku baaqaa waxay leeyihin ilaahay ha laga xoroobo diintana ha laga xoroobo laakiin yaa addoon loo noqonaya adduunyada iyo shahawaadka iyo rabitaankiisa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah marka haddaad ilaahay caabudi weydo ama adduunyaad caabudi ama insaan kaloo kula midabaad caabudi fa ina alcibaadata sabiilu lxuriyati lilinsaan cibaadada walaalayaal asraarteeda waxaa ka mid a annaha ghidaau ruux wa ariiqu sacaada ruuxda inagu jirta ilaa labuu jidhkeennu ka kooban yahay ruux iyo jidh jidhka waynu ognahayoo wuxuu ku nool yahay cunnada cabidda hurdada nasashada ruuxduna waxay ku nooshahay cibaadada aynu gudanayno noocyada faraha badanee kala duwan leh haddii ruuxda cibaadada laga jaro gaajona way u dhimanaysa qaawanaanna way u dhimanaysa ilahay baa wuxuu leeya watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa uli lalbaab sahay qaata sahay waa maxay waa wax la cunoo la intifaacsado alla ka cabsi baa sahay u fiican buu ilahay alla ka cabsiga yaa cunuu raashiniya u yahay cunno wuxuu cunno u yahay ruuxda walibaasu taqwa dalika khayr alla ka cabsiga ilaahay dhar buu ku tilmaamay dharka yaa xidhanaya waa alla ka cabsi ruuxdaa xidhanaysa marka waanu qatan yahay waanu qaawan yahay insaanka ama qofka bani aadamka ah ee aan ilaahay caabudaynin subxaanahu wa tacaala ama cibaadadiisa xumaynaya wa aydan sabiilu sacaada cibaadadaynu gudanaynaa waa waddada lagu raaxaysto casrigan aynu joogno caalamku toosh buu sitaa
waxay ku raadinayaan wax loo yaqaano sacaadadaas oo ah raaxada iyo nasashada uu qofkii nasanayo raaxaysanayo nafisayo tii dhul badan baa laga raadiyey xoolaa laga raadiyey horumar tiknoolajiyada baa laga raadiyey dalxiis baa laga raadiyey cunaa laga raadiyey hamadii baahida la dharginayay rag iyo dumarka waa la la'yahay kow gaaladii way iswada dilayaan istarasti baa ku dhaco diiqad bay ku jiraan way seegeen marinkii sacaadadii iyo raaxaday seegaan oo inay ilaahay caabudaan keligii subxaanahu wa tacaala idan qofku wax badan bayuu haysanin oo adduunyo ah kol hadday cibaadadu ka dhab tahay raaxadii adduunyada wuu helay sidaa daraaddeed baa wuxuu lahaa ibnu taymiya raximahullah qofka aan jannada adduunyada gelin jannada aakhirana ma galo jannada adduunyada qofka gelaya waxa weeye macaanka cibaadada qofka helay jannada aakhirana kaasaa helaya jannada adduunyada sii galay cibaadada walaalayaal waa ibtilaa'un yuhadibu linsaan imtixaan baa laynaga qaadaya imtixaankaasi aynu adduunyada marayna waa cibaadadaa imtixaankani ma aha miduu ilaahay addoommaha ku dhibayo ku ciqaabayo ku cadaabayo laakiin waa imtixaan lagu safaynayo oo iyaga dantooda ah qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasalla qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum waa salaadii waa dikrigii waa sakadii intiiba dahaara iyo taskiya ilaahay uu ku tilmaamaya qofkii naftiisii buu nadiifinaya marka sida nafta loo maydho ee ruuxda loo maydho ee waxaad la rooraysa dembigaa la isaga reebaa wa hadihi alcibaada haddii kale qofka wixiisiibuu ku dhex jiraa xumaantiisaasuu walaaqayaa isagoo madow buu ilaahay hortegaya subxaana wa tacaala qaybahaasina waxay ka mid yihiin nuxurka iyo sirta iyo faa'iidada ku jira cibaadadan aynu gudanayno marka wuu calaf la'yahay ciqaab aakhirana waa u dambeeyaa insaanka cibaadada fudaysaday ama ka tegay kuwa ilaahay waafajiyeyna waxaasoo nicmo ah iyo barwaaqo ah iyo badhaadha buu helayaa laakiin waxaa laga maarmaana oo daruuriya inaynu ku dadaalno aladab fi hadihi alcibaada cibaadadaasi inay adaabtaa yeelato allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albaila baila warzuqna ijtinaaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة